asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal soo dhawaada waaniga waa sharmaarke xuseen cusmaan sidaad ugu barateen bal janaalka caawiyaha aadmiga wuxuu idiin soo gudbinayaa xigmadooyin dhiirigelin ah taasoo aad naftiina ku dabaqi doontaan in badanna aad ku caawin doontaan. maxaa ku joojinaya? ma daalan tahay? ma hurdo kuugu filan baadan helin? ma xiriir baa kuugu xumaaday? ma cid ku taageerta ayaad weyday? ma halka aad ku nooshahay ayaad nacday? ma enerji badan aadan lahayn? ma lacag badan aadan haysan? mise waxa ku joojinaya ee ku haysta waa adiga naftaada. marmarsiyadu waa dib u dhac, waa waxa qofka dib u dhiga, waa dilaa. jooji inaad cudurdaar u samayso naftaada, jooji cabashada iyo calaacalka, jooji in aad dadka uga sheekayso murugadaada iyo sheekooyinka niyad jabka ah si aad dadka ugu beer laxawsato been iyo khiyaali isuguna qancisaan. dadka aad arkayso ee horumarka gaaray ama sameeyey heer sare nolosha ka gaaray ha ka masayrin, ha u qaadin in nasab iyo dhaxal u heleen. dhammaantood in badan meel hoose ayay kasoo bilaabeen. waqtiga 24 saac ee aad si isku mid ah u wada haysataan ayay ka faa'iidaysteen. waa xilligii aad isbedel samayn lahayd, waa goortii aad go'aansan lahayd inaad samayso wixii naftaadu rabtay. waqtigu waa hadda. jooji dib u dhigashada iyo wahsida. ma jiro waqtiga sax ah ee kuu imaanaya. waxaa la joogaa waqtigii aad ka faa'iidaysan lahayd kartida iyo kheyraadka aad haysato oo ah naftaada, lixaadkaaga, maskaxdaada. ma dhibaato ayaa kaa haysata nolosha? ma dhibaato ayaa kaa haysata dadka qaarkii iyo deegaankaaga? wax ka qabo. u kac sida aad isbedel u samayn lahayd markasta. ma inta aad go'aan gaarto ayaadan fulin? ma wixii aad niyeysato ayaadan ku dhaqaaqin? ma caajis iyo wehsi ayaa deris kula noqday? waxaas oo dhani waa marmarsiyo. marmarsiyadu waa wax aan jirin, waa wax la sameeyey, waa been. sidaas isaga joojinaysaa been. waxaad beenta ku joojinaysaa run. haddii aad isbedel dhab ah rabto, haddii aad rabto inaad guul gaarto oo horumar samayso, ku dhaqan hal sharci naftaada: been ha u sheegin. ha ka cararin runta. ha ku noolaan been, cabasho iyo cudurdaar aan jirin. ku noolow run. runtu waa waxaad haysaa waqti, waxaad leedahay karti, waxaad haysataa xirfado, waxaad haysataa aqoontii iyo taageeridii. la imow dadaal iyo dooni. ku tarbiyaday naftaada wixii aad rabtay in aad gaarto, inaad noqoto naftu waxay rabtaa in la qasbo, naftu waxay rabtaa in la hogaamiyo, naftu waxay rabtaa in la hogaanka loo qabto wixii aad doonayso oo dan kuugu jirto. miraha guusha iyo wax kasta oo nolosha wanaagsani waxay ku bilowdaan caqabado. ha ka baqan dhibaatada kusoo wajahda, waa imtixaan. ku dadaal sidii aad ugu gudbi lahayd si aad u marxalad kale cusub ula kulanto. had iyo jeer dhibaatadu waa u joogto qof kasta. la tacaal, ka gudub, wajah eeg, ha ka cararin. tani waa noloshaadii, tani waa fursadaadii, tani waa waqtigaagii aad isbedel iyo horumar samayn lahayd. beri baad samaynaysaa. ha isugu sheekayn. ma hubtid inaad beri gaarayso. maanta ayaad haysataa. jooji dib u dhigashada, jooji wahsida, jooji cabsida, jooji marmarsiyada. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج يا ليلي ويا ليلى وسبس نسقيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة. حب انتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي ولي ذكراني